dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka dowladda Kenya ee u fadhiya Soomaaliya kadib markii wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Nairobi isla markaana loo diiday inay gudaha magaalada galaan sida ay sheegayaan ilo wareed rasmi ah oo arintan xogaal u ah mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo Kenya ayaa la filayaa inay yeeshaan wada hadal diiradda lagu saarayo sababihii keenay tallaabada lagu hakiyay socdaalka wasiirada Soomaaliyeed iyo sidii arintaasi loogu xalin lahaa wada diblomaasiyadeed ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijiyay in safiirka Kenya ee Muqdisho loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda gudaheeda halkaas oo dowladda Soomaaliya lagu wado in ay ka dalbato faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan dhacdada isla markaana ay gudbiso walaaceeda wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in ay tallaabadan imaanayso xilli labada dal ay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo muddo dheer soo jiray isla markaana ay si dhow u wada shaqeeyeen arrimaha amniga la dagaalanka al-shabaab ganacsiga isu socodka shacabka iyo horumarinta iskaashiga gobolka bariga Afrika sida darteed dhacdo kasta oo saameynaya mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa loo arkaa mid u baahan in si degdeg ah loogu wajaho wada hadal rasmi ah dhanka kale dowladda Kenya wali kama aysan soo saarin war rasmi ah ku saabsan oo lagu faahfaahinayo sababta loo hakiyay gelitaanka wasiirada Soomaaliyeed sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya wali ma aysan shaacin faahfaahinta kulanka la filayo iyo tallaabooyinka ay qaadi doonto marka wada hadalladu soo dhamaadaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay aaminsan yihiin in qaabka loo maareeyo arintan uu door muhiim ah ka ciyaari karto ilaalinta xiriirka labada dal maadaama Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan dana istiraatiiji ah oo ku saabsan nabadgelyada gobolka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ah waxaana la filayaa in kulankan lagu soo bandhigo cadeymo dheeraad ah oo sababta keentay dhacdadan iyo sidoo kale tallaabooyinka labada dowladood u qaadi doonaan si looga hortago in ay mar kale soo noqoto